doodan oo ay soo qabanqaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya aqoon-yahano iyo xubno kale waxaana lagaga hadlayay tacadiyada ciidamada Kenya ay ka geysteen gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubbooyinka iyo Gado. dooda ayaa diiradda lagu saaray burburintii ciidamada Kenya ay dhawaan u geysteen xarumihii shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku lahayd gobolada Jubbada Hoose iyo gobolka Gado. waxaa lagu cambaareeyay falalkii ciidamada Kenya ay u geysteen shirkadda Hormuud waxaana lagu baaqay in si degdeg ah wax lagaga qabto arintaasi. Cabdikariin Xasan Iidow oo ka mid ah mas'uuliyiinta sare ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa qasaaraha guud ee ciidamada Kenya ay ka geysteen ilaa 6 xarumood oo shirkadda ku lahayd goboladaasi ka sheekeeyay. Soomaaliya ku maamulada doqonta oo buuxisay ayaa lagaga daray waxay shirkaddu markaa xeelinaysay oo markaas ay fiirinayso waxay leedahay dib ka weyn hay'adin u kaadi waxay maamulka shirkadda ay markiiba ay go'aansadeen inay maartay ayagu shaqadooda dib u bilaabaan isla markiina adeegyada dib loogu soo celiyo dadka u baahan. isla xaruntii saddexaad oo la yiraahdo Ceelbaande village oo macnaha tuulada Ceelbaande la yiraahdo oo ku taal Ceelwaaq degmada Ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Gado waxay gubeen iyadana oo xaruntaas burburiyeen 20kii bishii January 2008. xaruntii koowaad ee burburiyeen shaqaalihii ay torture galeen oo ilaa ay maartay hadalkeen maayo ay jir dileen waxay ka sababtay shaqaaluhu markastoo lagu soo duulay in xarunta isaga cararaan. taas waxay noo soo wareegisay shaqaalihii bal in la badbaadiyo maadaama hadii la burburiyo. Ambassador Cabdiraxmaan Dinaari oo ka mid ah xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed iyo xildhibaan Cabdicasiis Cilmi Cali oo ka mid ah guddiga isgaarsiinta baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabagabadii ka hadlay tacadiyada iyo dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ku hayaan shacbiga Soomaaliyeed iyo hantidooduba. runtii anagu wala xiriirnay ilaa prime ministerka wala xiriirnay waxaan la xiriirnay oo kale wasiirkii isgaarsiinta iyo post intuu waxay sheegeen in dawladdu aanay ka saxanayn. waxaan leenahay marka faraska waxaa jeedalka loogu sii dhuftaa ha ka dheereeyo. waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsaha badan ula xiriiraan dowladda Kenya oo ay weydiiyaan magdhow oo isla markaasina ay kula xisaabtamaan wixii fal ah ay ka dhacay ee lagu burburiyey 6 xarumood ee shirkadda Hormuud ay lahayd. waxaan kaloo soo jeedinayaa mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliya inay ka hadlaan tacadiyada lagu hayo ummadda Soomaaliyeed waayo waxaan ognahay muxuu ahaayey maantay shirkadda Soomaali ummadda Soomaaliyeed ay ku macaamishaa inaysan badnayn ama aysan maaragtay wax badan ku macaamilin waxaa lagu macaamilaan ay tahay ATC. qofka dhinta waa laga samraa laakiin qof baa u dhimanaya dhibkeeda ay leedahay. runtii waana waxa ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed maanta kala socodsiiya. waan ognahay inaysan jirin awood camimi karta ama dabooli karta baahidaas meesha ka jirta. barnaamijkan waxaan u qabanay waxaan u aragnay haddii aan tan ka aamusno kuwo kaloo ka dhib badan ay imaan doonaan. marka haddii wax dhacaan wixii qaldan haddii mar lagu wada qayliyo waxaa moodaa in meesha la dabooli karo. ujeedkeenu wuxuu yahay marka haddii maanta shirkaddan la soo weeraray ee ka aamusno berrina qof walbaa la weerarayaa. Cabdicasiis Ibraahim Xamdokey TV Universal magaalada Muqdisho.